madaxweynaha waqtigiisa haddii la qaban waayo dastuurkaa shagaalka loo marayo waxaa leedahay doorashooyinkii inaan ku maloobi xisbi walbana siyaasadiisa iyo suudooda baarlamaan ku maraya shalay ceer biyo qodar iyo shidaal baa kasoo booday toon meel baa loo doorin raad wanaagsan oo shidaal baa kasoo baxay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlayay sanad guuradii 27aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ayaa waxa uu madaxweyne Biixi ka hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana uu madaxweynaha Somaliland sidoo kale ka hadlay khilaafka doorashooyinka ka taagan dalka iyo sidoo kale sidii ay u soo kala horeyn lahaayeen madaxweyne Biixi oo ka hadlaya arrimahaas iyo sidoo kale arrimo kale waxa uu tilmaamay qodobka waxaan ka waramayaa dalka guud ahaan iyo xaaladiisa maanta uu joogo dalku waa nabad waa ilaahay mahadi iyo dadka nabadgelyada qaabilsan dhammaantood caaqilka ka bilow karimiga ka bilow islaanta jaarka ee cidda garan weydo odhanaysa maxaa ahaydeen ku dar inanka yara dhulkiisa u foojigan ku dar ciidamada hawshaa qaabilsan ku dar madaxdhaqameedka culimada qof kasta oo waxgaradii wax ka qayb qaatay nabadgelyada waa shaygan dhammaanteen gacanta ku ilaalino guusha aynu ka gaadhino waxa weeye 30 sannadood aynu xorta ahayn ee weliba dad badan ilaa lama ictiraafsanay way taag daran yihiin aynu nahay dalka qura nabadgelyada sugay waa ilaahay mahadi iyo sultaga dadka nabadgelyada waxaanu ku gaadhnay inaynu dhahno waynu noqono dal doortay inuu dimuqraadiq noqdo oo xisbiyo badan tartamaan oo cod iyo qof lagu kala baxo waa awood shacabka Soomaaliland oo ammaanteedii libteeda leeyahay dibad iyo gudaba oo aynu gaadhnay oo aynu dheerahay dadka jaararka aynu nahay ee la ictiraafsan yahay waa heeraan weli bay ku gaadhay doorashooyinku maxaynu ka doonaynaa iyo xisbiyo badan iyo dimuqraadiyadda waxaynu ka doonaynaa inaynu ku horumaro waxaynu doonaynaa inay taladeenu ku wanaagsanaato waxaynu ka doonaynaa inaynu dowladdeenu ku fiicnaato oo dadka shaqada u qabato waxaynu ka doonaynaa shacabkeenu inuu dowladda la shaqeeyo oo mid walba waajibka qaranku u baahan yahay uu ku taageero hay-adaha dowladda waa in labada isla fahma maadaama ay inagu cusub tahay xaalada adag oo dagaala iyo coladana laga soo doogay markaynu dimuqraadiyadda gala dimuqraadiyadda waxoogay hawlay nagu keentay marka hore fahamkeedi baa nagu adkaaday dadkeena badankeeda mar labaadka doorashooyinkii ayaa waxay naga mareen marba badan waddooyin qalada waa mida doorashooyinka waxaynu ka doonaynay inaynu dooranno dadka aynu isleedahay waa qofka ugu habboon ee xilkaa qaadi karaya yaa soo xulayo qofka waxaa la yidhi yaanu xisbi soo xulin yaanu reer soo xulin yaanu kooxi soo xulin talada muwaadin kasta gacantiisa ha ku doorto qofku isleeyahay xilkaa wuu qaban karaa xilo kala doortoo dhan taasi waa hore tusaale guud ta maanta joogta waa sanad doorasho dalkuu degan yahay waa nabad rag badan oonu isku ayninahay oo uu ka mid yahayna odayaha baarlamaanka in badan ku jiray oo odayaasha dalka ka mid a oo shalay midiyaa ka hadlayay halkii uu wax dhigay aniga ilama saxsanayn gabayaashii horaa odhan jiray gabayga markay mid tixraacayaan hebelow gabay wuu kaa qandooda wuu kaa qaloocsana waxaan leeyahay saaxiibkay dabadaadii shalay way kaa qaloocsana taadina ma ahayn waayo arnimaadina may ahayn waayo waxaad saadaalis dalka inay balaaya ka taagan tahay inuu duwaayo ilaa la garanayo isagoo taliyo oo waayo doorashadii waxay taagan xisbiyada waxaa ku dhaway tii madaxweynaha waxaa ku dhaway tii gowtida qiil looma hayo waa loo yaabaa way dumaysaa aragtidaasi waa tiraja la-aanta waxaad adiguna og tahay oon adna ogahay oo shicibkuna og yahay oo caalamku og yahay dal aan nabad ahayn oon isku kalsoonayn oon hay-adii shaqeyni doorasho ma galo ee uu isjirjiira markaa doorasho aynu galo iyo dalkaa waalan saaxib isma qabtaan dalkuu degay doorashada u gelaya habkii loo galay habraaciyadeedii iyo sharciyadeedii iyo hay-adihii doorashada qabanayna way dhan yihiin waa kow intaasoo doorasho waynu u baahana say kala horeeya
waxay u kala horeeyaan sida sharcigu dhigayo sanad iyo in ka badan waxaynu ka hadlayna doorashada hala qabto doorashooyinka waa la qabanaya siday u kala leeyihiin doorashada iyo sida loo kala hormarinayana waxaynu u dooranay hay-ado axsaabta 10 sano mar hala furaa layidhi waxaynu u dooranay oo u xil saaray hay-adda diiwaangelinta axsaabta qaranka iyo ururada baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo kuwii maxaafidka ahaaba waxaynu ku heshiinay inaynu dhisno hay-addii diiwaangelinta ururada siyaasiga ah iyo xisbiyada qaranka oo inoo maamulaya doorashadii ururada iyo xisbiyada guddiga magacaabay baarlamaanka u codeeyey baarlamaankuna axsaabta lagu ka koobaya xisbi walbana siyaasadiisa iyo suudooda baarlamaanku maraya waxaanu dooranay hay-addii doorashooyinka oo u garqaadaysa garsoore iyagoo ah xisbiga tartami doona iyo madaxweyne iyo ku-xigeenka tartami doona oo ah hay-addii doorashooyinka qaranka iyadana xukuumad mucaarib muxaafid gorayaasha cidita waynu ku heshiino iyadana waynu dhisno cidda qule ka hadli karta goormaa xisbi hawshaa la qabanayaa waa labada hay-ado sida sharcigu siiyey madaxweyne ma faragelin karo xukuumaddu ma faragelin karto xisbi mucaarid ma faragelin karo ku muxaafidi ma faragelin karo golayaashay soo dhaafeenna hawsha u igmadeen ma faragelin karaana waa lagu dhowraya waxaa loo sameeyey xeer adag madax banaanidooda inay keenaan marka waxaan leeyahay oo haddii aynu intaa ku heshiisahay inaynu intaa dhisano waddada aynu marayno ragga waaye aragga ah ee aada arrinta u yaqaana ee marka tallaabadii ay ururaasi qaadaanba ka qaylinaya ama institutionada dowladda howlaha ay qaabilsan yihiin dee way kuma qandooda waa khalad adaa waxa ka soo dhisay hay-adahan heshiis baynu ka nahay inaad ka daba qaylisa maha weliba ragga la bidaayo waa aragnimada laga 17 sano ay baarlamaanka soo fadhiyeen inay dadka warqalada oo niyataba oo aan jirin u sheegaan dee waa khalad waan kaga arag duwanahay waxa weeye dalku waa nabad abaarta way naga jabtay ilaa heer dadku waa isu niyadsan yahay doorashadii waynu gelaynaa siday hay-aduhu nagu soo kala hormarayaan baynu u gelaynaa waxaa timi doorashooyinku haddii ay qabsoomi waayaan 3 doorasho yaalla ta koowaad ee xisbiyada hadday 10 sano ka dhammaato xeerka baarlamaanku baaskareeyey ee ay ku shaqeeyaan muu sheegin haddii waktigooda la qaban waayo halka loo marayo sida la yeelayo muu sheegin marka qaranka waxaa ku waajiba in waktigeedii la qabto waayo tixraac kale male qeyb kale oo hadday qabsoomi waayaan maxaa la yeelaa ilaa hadda ma hayno in ku cusub loo sameeyey mooyaan marka imika waxaanu ku egnahay waktigooda la qabanaya madaxweynaha waktigiisa haddii la qaban waayo distoorkaa shagaalka loo marayo sharci baa ka yaala sharcigu ciddii uu seebaa ka talinaysa 3 guurtida marka waktigooda imika dhammaado xaggeen loo marayaa waa taala horaa xal loogu xalay 2006 bay dhacday madaxweyne markaa joogay gaarigaalo ahaa wuxuu u qoray tafsiir maxaa la yeelayaa maxkamadda qaranka maxkamadda sare ee dastuuriga isla markaa waxaan kusoo koobayaa dimuqraadiyaddu waxay noo tarto iyo inaan ku culloobin iyo inaan isku dhicin hadday colaad noo keento waxaan leeyahay aynu bedelno inaan hore u marro aynaan ku culloobin aynu qabaa'il kaga baxno xisbiga wada galno urura kala galno dadku si isku arreeyeen ay isu raacaan waa tallaabada nuga baahnay adduunkan qaateen hore ugu maray waxaa leeyahay doorashooyinka inaan ku culloobin haddii maalinta kaamijoogo dee birta la iska asloo laydhaa waa la duwaya dee dalkii maxaa loo arkaya somaliland doorasho dimuqraadiyadsa laakiin waa laga baqayaa mar walba ay qoorku jirtaba qayradeeda buuqa soo wax kale soo idaacadda dee qarankay hoos dhimaysaa karaamadii qarankay hoos dhimaysaa kalsoonidii dadka hore iyo hoos dhigaysaa maanta waxaan leeyahay balaayo aynu cid marin aynama hayso waxa hubaana oonu wada ognahay cirshiida in dusheeda dahab aan laqodin laga baaro oo laga helo oo sanadkii u dambeeyay ilaa 250 kiilo laga dhoofiyey shalay ceel biyo laqodayo shidaal baa kasoo booday
toon meel loo doonin raad wanaagsan oo shidaal baa ka soo baxay dalka nimcadiisu dad yar weyn hawaaru naga badiyay laakiin maxaynu nimcada ku gaari karnaa inagoo dhisna hay'adaha dawladda inagoo dimuqraadiyadda iyo hanaanka dawlad wanaageena u mara si nabadgelyo oo ilbaxa oo aynaan markaynu kaambeynka yani foosha maxaa ololaha iyo doorashada aanu qarnimada gelgelin oo ummaddu naga yaabin in shuruucda dawladda iyo institutionka loo hogaansamo oo siyaasiyiintu u hoggaansamaan iyo dadku ay dhegaysanayaan ixtiraamkooda si caalamka wax kula qabsanaya ictiraafka markaad ictiraaftaa lagu ictiraafaya uu kuu qadariyo arka inaad tahay ummad isku kalsoon dawlad dhisanaysa wadada ku socota intaasaa iga soo jeedina maxamed suldaan wararka telefishinka hoon kaybal hargeysa